soonkana soonka weligaa ma soomin soomin waanad og tahay inuu ka mid yahay tiir ka mid ah tiirarka muslimiinta oo ilaahay quraankiisa ku leeyahay oo xataa uu sheegayo in maxaad tiri salaada waa tukaday goorma kugu dambeeyay salaad tukatay wallahi salaadan si sax ah u tukado shaytaan rajiim bismillaahir rahmaan mala 20 sano ka hor baahay iyaduna okay weligaa maada soomin laakiin salaada wadu 20 sano weligaa ma soomin salaada 20 sano laakiin mar waxa jira wadaan ay raashin saxaaq ay horta badankayga cadaabtaabana lagu sheegay horta dhageyso qoladiina raaxa markaa idin sheegaya hadda jannadii idinka buuxiyay you know why waxa u buuxseen because way wada qarxiseen okay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida daafadeeda ka joogtaan mar kale clip cusub halkaad naga daawanaysaan waa barta youtube-ka ku leenahay hodo fashion oo walaashin hodan oo idin la soo dhawaada dhammaantiin daawadayaal hadda channelka ay ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saartid kabileelkana furatid si aad halkan aad noogu mid noqoto oo waxaan usoo gelino aad u daawatid aad baad ugu mahadsan tahay intaa kadib caawa mabduucaan inoo wada waxa weeyaan walaalkeen Mustafa Martin oo yiri hadallo badan oo runtii qof weyn wuxuu ku hadlaanahayn balse laakiin xagga kale marka loo dhigo la oran karo waa hadallo runtii aad loola yaabo ama hadallo dad badan oo agtiisa ka dhawaa aad uga hosiiyay ama ka murugaysiiyay ama familigiisaba waxa uu yiri hadallada waxa uu ku dhawaaqay waxa kamid ahaa 20 sano ma tukanin abidan inta aan noolaana ma soomin waxaan ahay haddana qof muslina runtii dhinac loo qaado waa la garan laayahay waxa uu kale uu ku dhawaaqayaa maalhayskiisa ah waa aan sinaystay ama xumaan iyo macsi waan sameeyay wax kasta oo adduunka la sameeyo xumaata waan sameeyay hadda halka kale uu dhigay uu yiri haddana reerkayga waliba qabiilkayga cadaab baa loo ballan qaaday halka dadka kale loo ballan qaaday janno waliba qaybta dadka reexa marka uu sheegayo bal waa kan clipkii ee soo wada in la soo wada daawada asxaabta qaaliga waynu kala goynayna xagana uma socotid xagana uma socotid dadka u kala cadee Martin ma muslim baa mise waa masiixi markaan baa ku weydiin kara waxaan ku oranayo magaal baatay ma masiixi baad ma muslim baatay ku weydiin anu markii waan kaga jawaabaya ma nin baatay ma naag baatay waxa soo dhan garanaysa haye markaan horta waxaan doonayaa inaan ku yar dib ku yar celiyo haye horta anu malcaamada quraanka waa lagu daray malcaamadaydu waxa loo taas oo soo noqonayna way ugu jirtaa laakiin marka hore su'aasheeda ka jawaab su'aal laguma dhaliye ka daayay tayga jawaab ha iyo maya anu horta waxaan nin muslima waa gartay taas waa jawaab cad waa in yariso may waan soo noqonaya macnaha cadeymahaas iyo su'aalahaas way yeelan malcaamada xilliga soonkana soonka weligaa ma soomin weligaa maada soomin noloshaadaba ilaahay bari ma soomin bal waxaad kay qabadsiisaa Martino ma soomin waanad og tahay inuu ka mid yahay tiir ka mid ah tiirarka muslimiinta oo ilaahay quraankiisa ku leeyahay oo xataa uu sheegayo in soonka uu yahay wax soo jireenay waxa soo la socda arkaan islaamka waa la socda si wanaagsan aan ku dhameystirno soonka iyo sakadii waxa la socda laakiin weligaa maada soomin weligaa ma soomin salaadana maxaad tiri salaada waa tukaday goorma kugu dambeeyay salaad tukatay wallahi salaadan si sax ah u tukado shaytaan rajiim bismillaahir rahmaan mala 20 sano ka hor baahay iyaduna okay weligaa maada soomin laakiin salaada wadu 20 sano weligaa ma soomin salaada 20 sano laakiin mar waxaa jirta qoladan ganacsatada markay misaajka galaan maartay inaan la galo oo la si tukado laakiin si taxanaa ma tukatay macnaha waa duruuf baa keenaysa dadkii la socdo ma galaadna wad la gashay anna waa la galaa waan kartay laakiin si isdaba joogo 5 sanadood baan tukaday wallahi aan garan bari baa waxa jiraan waxda daaha barigan burca joogay si wanaagsan barigaasaan xogaa si xiriira u tukatay oo burca markaa malxamada dhigan jirnaa in ilaahay adoomadiisa wuxuu markaasi markuu la hadlayo labiya dadiga wuxuu yiraahdaa markaad gogosha isweydaarsanaysan waa inuu hayndaab jiraa ama xarig meher markaasi inuu jiro meher la'aan yaanan arintaasi la samaynin balse waxaa jira dad fara badan oo arintaasi ka boodo iyagu dee waxay uga boodayaan dee meherkaba iyagoon jirin baa laga yaabaa inuu marka qofku hami galo marka adigu dhalinyaranimada hawshaa ma soo dabaalatay
hadlayaa dee lab iyo dhadig ka dhaxaysa lab iyo dhadig ma wasmaad ka hadlaysaa waxaan ka hadlayaa dad si kale oo dumar iyo ragga markay kulmayaan dhalinyarnimadaada adigoon ma naag ma u galmootay ma dhabtay maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa haddaan hadalka si kale kugu jiray ma saaxiibtay ma wastay hadalka haddaan si kale oo si wanaagsan isku meel baynu u soconaay adigu qof dumar ah oo aan gayaanka laakiin uusan meher ku haynin ma la galmood si wanaagsan okay ta kale waxa jira waxyaabo fara badan oo waxa jira si lamida wali waxa sheeg uu ilaahay dadka uga digay oo yiri haddaad isticmaashaan dhibad kala kulmaysa waxa kamida maandooriye waxaan eeg dawkaad waxna waa practical waxna waxa kutubta ku qoran si wanaagsan anigu sina iyo khamri iyo dhac iyo waxaan horta adduunka soo sameeyay ma jiro waa ku soo wada laakiin inaan waxaan rabaa laakiin kuma wada dhaqmo waa ku soo wada qof aan sinaysan iyo qof aan wax sameyn ma jiro waa ku soo wada haga dulboodin waxa hadalka waan soo wado adna waad samaysaan ana waanu sameynaa hariya habeen waan ku marka wixii laga digay iyo waxa suuqa yaala isma laha waa kala saarayna laakiin hal mid baa jirta waan ku soo wadaayo waxa laga digay waxa jirta xigmad tiraada aadamuhu sidiisa wuxuu jecel yahay wixii loo diido aadamuhu sidiisaba muxuu jecel yahay wixii la yiraahdo taabanin hadda isku soo dhacna marka ku soo wadaa maxaa lagu diiday adiga samaysaa waxa xanta iyo beenta iyo waxa kale ilaahay waan ku darso hore u soco ma ku dari maayo halka dhaaf maayo shan loo shaada si waan kartay waa ka gudbayna waliba I enjoyed ma maad isticmaasho ma qofba markuu khamriga cabay amba maandooriye sameeyay wareero madaxu xanuun dhaxdhacay oo bilaayo ku dhacday moogta anagoo dalxiisa anagoo diyaarada korsan anagoo ganacsi ku jirna anagoo Hawaii joogna anagoo Japan joogna ayaanu de waxaan ku raaxaysan jirnay cabideedii iyo isticmaalkeedii waxaan wax dhibana ma aha waxay ku xidhantay dooqaaga iyo marka loo fiiriyo adiga marka saad u aragtid way macnaha aan kala saarno marka leedahay dhib ma laha dad bay dhib ku tahay laakiin adiga markii lagu fiiriyo marka adiga markii lagu fiiriyo dhib kuma waynu ka soconaynaa adu dhib kugu hayso martin ahaan waa kula wax dhib ugu hayso balwadihuna way noo dheeraay marka anagu mujtamac baan ku noolayn ma garanaysaa burcal iyo wada socda oo keeda qaadka cuna iyo keeda dhilaysta iyo keeda sigaarka cabaya keeda khamriga cabaya wadaadkii wuxuu de ummadii baan ku dhex jirnay si wanaagsan wax baasoo isa soocayo laha kana kufri iyo kana fadwa haysata si wanaagsan ma jirin wadankuna sidaas iskaba ahaaba wadankeenu uu ladnaa oo khamriga weyn soo saari sax miyaad xamar kismaayo ku noolayn soo arkay labada miyaad wixii habla ee batuula October xirsiyo cabdiye siciide miyaa wixii caashiq ugu abuurin te caashiq calaamadu leeyahay de calaamadu waa kuwan aragnay calaamaduhu leeyahay laakiin de calaamadu waa dhanka cadaabta ma hayna orda guushago anigu hadaan nahay reer saxaaq orda badankaygu cadaabtaabana lagu sheegay horta dhageyso qayb idinkeeda kamid iyagoo dhan ma la dhihi karo waa ka diid badankooda xaggaas waa ka diid adigu haddaad qabiilka ka tirsan tahay qabiilkoo dhan lama calaamadeyn karo adigu laakiin aan kuu sheego horta qoladiina reer xamarkaa idiin sheegaya hadda jannadii idinkaa buuxiyey why waxa u buuxiseen because way is wada qarxiseen okay sugte jannadii yaa u badan maanta waxa u badan dadkiis qarxiyey ugu dhawaystirayay horta dhageyso isaaq meeshan uma socdo waa imika wareey dhageyso mid baan ka saxay isaaq horta meeshan uma socdo waad soo wada daawateen daawadayaal runtii hadallada uu ku dhawaaqaya ama hadallada uu leeyahay waa hadallo xanaf leh runtii waa qof weyn oo haddana 20 sano maan tukanin waa qof weyn oo la adduunka inta noolaa maan soomin waa qof weyn oo yidhi wax kasta waan sameeyey macsida waxa ugu xunta dadka ay ku maqraati kacayaan yawmal qiyaama marka runtii dhagaha dadka wax u wanaagsan oo runtii uu soo bandhigay maaha runtii channelka soo galiya markii hore social media soo galiyayna inuu markii hore soo galiyo ma yahayn runtii wax qurux badan ma yahayn laakiin hadda waa bay dhacday anyway kaliya tacay iyo maanta dhan waa qabiil hebel iyo waa sidan kale waxa inooga wanaagsan kaliya inaynu hadal sadaqa leh ku darsano hadalka wanaagsan waa sadaqo markaan ku leeyahay hadal sadaqa leh waa hadal wanaagsan intaas hadalka wanaagsanna waxa uu ku yahay uun Allah ku soo hadeeyo hadduu hanuun alla u qoran yahay ama alla hanuuntiisu u qoran tahay alla waxaan weydiinay inuu soo hadeeyo runtii clip aad u xun weeyaan asxaabteeda qaaliga ah waa runtii waa wax laga wada xumaado ama laga wada murugoodo runtii haddana isagoo haddana xil isu soo sharaxaya runtii way jiraan dad badan oo noocaasi
baa laga yaabaa waa wax dhici kara inay jiraan marka waxaan leeyahay asxaabteeda qaaliga dad channelkayga ku cusub tahay subscribe saar si aan warar badan insha Allah kuula soo tabino iyo wax kasta oo ka cusub social media waxaan leeyahay asxaabteeda qaaliga walaashin hodan oo idin leh wad ku mahadsantiin daawashadaada daawanaysaan aad baan idin salaamayaa